بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 550 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه والبيهقي، والحديث صحيح لغيره. وفي رواية أخرى: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي، والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 28 bishii saddexaad rabiicul awal sanadka 1446 isla markaana waafaqsan 1 bishii tobnaad sanadka 2024. waxaana ku jiray kitaabkeena ugu magacdaray almuntakhabu min saxiixi sunna nabawiya. ayaanu ku jiray qaybihiisii. waxaanu soo gebagabaynay khamiistii, waxaanu soo gebagabaynay ama sabtidii ama axadiiba waxaan gebagabaynay maadadii la dhihi jiray usrada burburkeeda iyo dhibaatada ay leedahay mujtamaca iyo awlaadda iyo intuba dhibaatada ay leedahay iyo waxyaabihii ku saabsamaana cabaar soo qaadanay. ilaa xadiid waxaanu soo qaadanay 6 ilaa 7 dhan baanu ka soo sheekaynay khuduurada ay leedahay qoyska burburkiisa iyo fiirsa la-aanta aan laga fiirsanaynin, si sahlan loo burburinayo, aathaartu leedahay iyo acmaasha shaydaanka ugu jecelya inay tahay. xadiidkii u dambeeyey eenu qaadanay axadii wuxuu ahaa maaragtay xadiidka anas bin maalik uu nabigu lahaa: in allaha tacaala saa'ilun kula raacin cama starcaahu axafida dalika madayacahu. maanta waxaan qaadanaynaa oon bilaabaynaa baab kale oon islaahay waktigan xaaliga aad baa loogu baahan yahay. waxaan walaalaha horta u sheegayaa, ka raaligelinaya, shalay oo itniin ahayd wuu naga baaqday darsigii. waktigii ayaa cidhiidhigu noq waan ka gaari waayey, aad baan u mashquulay. saa darteed raalli ahaada. midda kale waxaan u sheegayaa, ama sida noo ahaan jirtayba, kitaabkeena akhrintiisa, kitaabka muntakhabka waa kitaab anagu aan samaynay, ma aha kutub kale oo meel kale ama kitaab kale maaha. dad badan ba waxay soo weydiiyaan kitaabka meeshii laga heli lahaa noo sheeg. marka kitaabku maaha kitaab maaragtay maktabaadka lagu iibiye, waa kitaab anagu ciwaankiisa aanu dooranay, axaadiistiisana aanu ururinay. wax badan baaba naga dhumay, laakiin intaan hadda dabcinay oon hagaajinay 1115 xadiid weye. baab kastana sida qaalibka waa laga heli. saa darteed asag baan akrinaa, waxaana u akrinaynaa kolba waxii aan isleenahay baahida maanta waa loo baahan yahay oo ay taabanayso. marka waxaa laga yaabaa mararka qaarkood baababku inay isku xigsanin oy kala duwanaadaan. baabka aan maanta qaadanayna waxaan ciwaan oga dhigaynaa mansilatu lmuslimi wa xurmatu damihi. qofka muslimka mansiladiisa cinda allaahi uu ku leeyahay, iyo qadarka iyo qiimaha ilaahay agtiisa uu ku leeyahay, iyo dhiiggiisa xaaraamnimadkiisa in la daadiyo. saanu ogsoonnahay maanta waxaad moodaa inay dib u soo noqotay arrimo muddo laga yar nastay oo dadkaad moodaysa inay kasoo caqliyeysteen, yaad moodaa dib in loogu noqday, oo ku saabsan tahay dilkii iyo dagaaladii iyo qabaa'ishii inay dib isu laayaan, oo hubab waaweyn lasu adeegsado, oo maalin kasta markaa barakac iyo dad abriye ah oo wax dembi oo kasbadeen aan jirin la laynhayo, oo maaragtay bilaash iyo wax xaq maaragtay lagu laynhayo aan jirin, dulmi lagu laynhayo. arrintaa khuduurada ay leedahay khatarteeda haddaanu adin ahaan u gaari weynay, oo inaanu maaragtay meeshii tagno oo dadka kala qabanno aanu gaari weynay, anigoo culimmadii maaragtay matalahaya, inaan dowrka nagaga aadanaa bal kelimadanadu ay gaadho. wixii culimo ka qayb qaadatayna khayr allah siiyo oo cagahooda ugu tageen, intaana ugu teginna inay baaqa iyo ay jeediyaan. marka anigu waxaan rabaa inaan kaga qayb qaato maaragtay jeedin iyo kelimo. iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka yidhi qofka muslimka dhiiggiisa in bilaash laiskaga daadiyo xaqdarro iyo dhibaatada ay leedahay baanu mawduuceena kusoo qaadanayna. ciwaanna waxaanu ka dhigaynaa mansilatu lmuslimi wa xurmatu damihi. qofka muslimka mansiladiisa ilaahay agtiisa uu ku leeyahay iyo dhiiggiisa xaaraamnimadkiisa in la daadiyo. inta markaan kasoo gudbo,
حديث كان برا بن عازب رضي الله تعالى عنه أيا ورينا يا الحديث waxaa soo saaray laba qaybood oo qayb ibn Maajah iyo Bayhaqi baa soo saareen saxiix ligayrihi way riwaayad kalena imaam Nasa'i ba kitaabkiisa sunanka ku soo saarayna waa saxiix way idan xadiidku waa xadiis saxiix wa in kana بعض العلماء ay wax ka yar sheegaan oo sanadkiisa inqidaac baa ku jira ay dhahan laakiin xadiidku waa sugan yahay inta markaan ka gudbo bal xadiidkan aan dhageysano rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam la zawaalu dunya adduunyada zuulitaankeeda adduunyadan oo dhan oo la halaago baaba'da يا أهون كسهلا وكغفضت على الله إله الدشيس من قتل مؤمن قف مؤمن الدلك بغير حق لودله الدنيا دان قران قرسان نولا إيا وحان نولين لا وحان قيمة لا إيا وحان قيمة لهين بلا وحان بط إيا بحر اسكو جرتا بط إيا بر اسكو جرتا وحا كستا مارتا اسكو جرتا الدنيا دان قداما وبابادو لهلاغو عكتا لمريو ayaa kaga sahlan ilaahay agtiisa qof muumina oo la dilo macnaheedu waxa weeyaan adduunyadan oo dhan waxa ka qiimo badan qofka muuminka ka qiimo badan idan qof muumin oo la dilo adduunyadan oo dhan oo baabada ilaahay agtiisa kaga sahlan tahay riwaayada kale wuxuu ahaa walladii nafsi biyadihi nabigu ilaahay rabbiga ay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laqatlu mu'minin mu'min dilki ayaa acdam weyn cinda allahi alla agtiisa ka weyn min zawaali dunya adduunyada zuulitaankeedii baabaceeda akhi fillahi wa ukhti maartay alislaam walaalaha muslimiinta ee soomaalida khaasatan waxaan leeyahay bal xadiidkaas cid kasta oo soo gaadha bal dib ha u dhuuxeen adduunyadan dhan ee kugu geeraansan ee cir iyo dhul iyo inta u dhaxaysa leh ayadaasoo dhan oo baaba'da oo eber noqota ayaa ilaahay agtiisa kaga fudud qof mu'min ah muslim ah oo xaqdarro lagu dilo muslim xaqdarro lagu dilo adduunyadan oo dhan oo baaba'da ka sahlan halka waxaad ka garanaysaa culayska uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay qofka muslimka ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadan oo dhan oo tagta yaa agtiisa ka sahlan mu'min in la dilo innagana maalin kaste dad ahlul iimaana ayaa maalin kasta laga dhiijinhayaa oo arwaaxdoodii la jarahayaa oo la dilhayaa dulmi iyo maalayacni baa lagu dili dulmi iyo maalayacni iyo meesha annaga degi jira iyo xoolaha annaga meesha daaqi jira iyo reehbel iyana meeshan marin iyo reehbel iyana jagadaa qaadanin iyo reehbel iyana maarata magaaladooda magac loo yeelin iyo waxaana macno lahayn oo hataa ciyaal ama dad maarata aan aqli lahayn hataa koleeto ay iska garanhayaan ayaa loo laynhayaa marka waa arrin khatara haddaba waxaad ogaataan soomaalida islaynaysaay qofka qoriga haysta ee xabadda ridhaya iyo ka qoriga gaday ee lacagta ku gaday ee lacagta bixiyey iyo ka carabka ka dhiirigelinhaya iyo ka qalbiga ka farxahaya iyo ka u gabyahaya intuba waa isku mid weeye idan waxaa loo kala qaybsamaya gacan ku dhiigle iyo jeeb ku dhiigle iyo uur ku dhiigle iyo carab ku dhiigle wey afartuba waa nin kastaba qaybtiisu qaadanaya mid waa gacan ku dhiiglo asagaaba gacanta la qorigii burida asaga xabadda ku dhuftay midna waa jeeb ku dhiiglo lacagti qorigan iyo risaasta lagu gaday iyo ninka wax ridaya raashinku cunay lacagti lagu gaday buu bixiyey jeebka iyo jeeb ku dhiigle wey ninna waa uur ku dhiiglo qalbiga ayuu ka faraxsan yahay oo kala jira midna waa carab ku dhiiglo carabkii buu ku dhiirigelinhayaaba ama gabay buu u marinhayaa ama buraanbur buu u qaadayaa ama waaba hadlay buu dhiirigelinaya galad maartay wuxuu leeyahay maartay dagaalama ayuu leeyahay oo laaya buu leeyahay iyo wixii la midka intuba waa isku mid weeye dhammaantood waxay soo galahayaan waciidkaasay soo galahayaanoo dhammaantood waxa weeyaan waa dhiig cabiyaal weeyaan dhammaantood waa dhaalimiin weeye idan ikhwatii fillaahi xaqiiqatan culimmadu waxay dhaheen xadiidka waxaanu ka qaadanaynaa baa lii ama nusuus kaleba ay tusinaysaa adduunyadan dhan ee garaanta ee saa u gadaaman cir iyo dhul iyo inta u dhaxaysa leh dhammaanteed waxaan bini aadamka ka ahayn bini aadamka inay u khidmaysaa loogu talagalay oo bini aadamku marka uu isticmaalaa loogu talagalay saa darteed bini aadamka ka fadli badan adduunyadan dhan qofka muslimkaa bini aadamkale muslimkaan u jeeda qofka muslimkaa ayaa ka fadli badan adduunyadan dhan saa darteed bay ilaahay agtiisa kaga fududahay in adduunyadu baabado maxaa yeelay adduunyadan
garaanta dhan ee saa u wareegaysan qofkan muslimka ah inuu isticmaalaa loogu talagalay si cibaadada ilaahay u guto ardada dusheeda u camiro ilaahay subxaana wa khayrkiisa u socdo munkarka loo reebo xumaatada loo reebo wanaagga loo sameeyo ayaa qofka muslimka loogu talagalay inay u khidmayso oo maartay wax kasta noola iyo waxaan noolaynba inay qofka muslimka u khidmeeyaan ayaa loogu talagalay saa darteed asaga ka fadli badan mu'minka muslimka ka fadli badan adduunyada dhan idan adduunyadana dhan oo baaba'da ayaa ka sahlan muslim la dilo adduunyadana dhan oo baaba'da ka sahlan idan arrintaas arrin sahlan ma aho dadka dhiigga islaamka ku maman oo maalin kastaba inay ku qureecdaan rabow war ilaahay ha laga cabsado intaad adduunyada ku nooshay way yarta maxkamad cadaalad baa ku sugayso ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kala xukumayo xageed teli aakhiro markaad malaayiin aad dishay markay kuleetiga kugu soo dhagaan oo rabbi subxaanahu wa tacaala ay yidhaahdaan ilaahayow bal waa kana wuxuu nagu dilay ha la weydiiyo sababkuu nagu dilay bal ha la weydiiyo ay dhahaan ay kusoo istaajiyaan adigoo luqunta ay maaragtay xadhig lagu soo geliyey amaamallaahi lagu soo hor istaajiye ceeb ka weyn ma jirto wardhiigga islaamku waa dunuubta kabaa'irta waaweyn buu ku jiraa kabaa'irta waaweyn bacda shirk kabaa'irta waaweyn buu ku jiraa marka soomaaliya ilaahay subxaana wa tacaala ha laga cabsado qabyaaladan iyo qof dana kale leh ee dadkan uu ku xamaalanhayo war qof kasta oo aakhiradaada u xisaabtan 2 mitir baa dhulka lagaa gelinhayaayo ciddaad u dagaalamaysay kulama gelahayaan aakhirana su'aalahaada kama jawaabhayaan labada malag ee qabriga lagugu keenina su'aalahooda kama jawaabhayaan ninkaad u dhimanaysay iyo qabiilkaad u dhimanaysay marnaba su'aasha kaaga jawaabi maayaan malakaani aswadaani azraqaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam 2 malag oo madmadow oo indha buluu ah leh ayaa qiyaamada iyo qabriga ugu imanaya qofka markaasay su'aalaha saa ugu gamahayaan idan afku kala qaadi qofkii haddii daalimka ahaa idan 2 malag ee madmadow ee indhaha buluuga leh markay ku imanayaan waxa weeyaan dadkii aad u dagaalamaysay iyo qabyaaladii iyo qabiilka u dagaalamaysay waxba kuma qabanayaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baqno dagaalkan soo cusboonaaday iyo qabaa'ishan islaynaysa iyo dhiiggan hor leh in la daadiya dib dadku aad moodo xiisa inay u haystaan oo u qabaan arrintaa ha la joojiyo waa arrin khatara weeyaan la zawaalu dunyaa adduunyada zuulitaankeeda iyadoo dhan oo baaba'da ahwanu ka sahlan oo ka fudud cala allaahi alla dushiisa min qatli mu'minin qof mu'mina dilkii bikayri xaqin lagu dilo mu'min xaq darre lagu dilo iyo adduunyadan oo dhan oo baaba'da ka sahlan lafdii kale waxa fii riwaaya والذي نفسي بيده ربك نفتيد قعنتي كجرتان كدارتي لقتل مؤمن دلكي با أعظم وين عند الله ألا أكتس كوين من زوال الدنيا ذا زولتان كذا مؤمن دلكي با كغوين الدنيا ذا رطانا بابا الدنيا ذا رطانا بابا بلو في رصدا مؤمن كان لدي لها كيلا انتين نقون كرا كونتان كيلو بقول كيلو الدنيا لنا ما يقين نقول كرتا ومع ذلك مؤمن كاسا كفضل بدن مؤمن لديلو أيا كغوينان بدن الدنيا نردون بابا يعني الدنيا نردون بابا إلهي أكتيس وسهل لكن مؤمن لديلو إلهي أكتيس ووينته أدب وين ذنبي وين أو خطرة ذنبي وين الدنيا نهلاك سيتين لمدمو الدنيا نردون بابا كسهلا مرك إلهي سبحانه وتعالى هلا عبصده وأرنتها هلا تشوتشيو waxaan arki doonaa shaydaan naftirkiisa qofka markuu ciidamadiisa diro oo dadka fasahaadiya u yidhaahdo riboodka markay keenahayaan waxa uu ugu jecel yahay oo taajkiisa u xidhaya shaydaanku hal taaj buu leeyahay oo u xidhaa ninka ugu garaada sarreeya ugu fasahad badan ayuu taajka u xidhaa idan markaa ninkaa markuu u yimaado ninkii wuxuu dhihi markaa shaydaankii ciidankiisii fayaquulu wuxuu dhihi لم أزل به منك مسلم كها كمان الزول إن فدنيو حتى قتل إلى أولال كيس كلا مسلم كهو كدلو فيقول مركز حدية أنت نكل الربي وأذيك ويلبسه التاج كو إحدا يا مركا تاج كيس ومارت قرادة أوين تاج أي أسرها يا نك مؤمن دله وأعلى درجة ويانو إذا مضى الشيطان كأي قادم
أعلى درجة كي قالوا بوحول لعل إنه توبت كان الله يابا marka ilaa uu ka yidhaahdo kii maarta muslim baan intaan fidnayo ku kala dilay kaasuu taajka u xidhaya war ha noqonina nimanka shaydaanka ka farxiya ee ayaga sababkooda taajajka ay ku helaan shayaadiintu ha noqonina oo ha la iska ilaaliya soomaaliyey ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tusanuwin irsaaqa xaqa raacitaankiisa hal mar baa xadiidka lafdigiisa dib u akhrinayaa alxadiidu 550 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق رواه ابن ماجه والبيهقي والحديث صحيح لغيره وفي رواية أخرى والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا رواه النسائي والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.